baahi weyn aa jirto sababta waxaa waaye maadaama oo ay fildiga u badan yihiin rag, dumarku waxay qabaan baahiyo badan oo sharci. Waxaa laga yaabaa inaysan aqoonin qaarkood xuquuqdooda iyo meelahay u raadsan lahaayeen. Waxaa jiro waxyaabo badan oo aysan ku dhiiran karin inay nin kala hadasho. Markii lawyer nin u tagto waxyaabo badan aysan u faahfaahin karin aa jiro. Waxaa ka mid ah haddii oo kufsi ku dhaco, haddii oo any violation oo ayada xishoodkeeda aysan u bandhigi karin nin. Doodan waxaan ku eegaynaa sababaha ay gabdhaha ugu yar yihiin barashada kulliyadda sharciga ee qaanuunka. Waxaana nagala qaybgalaya Imaan Cabdikariin oo ah gabar baratay oo aasaastay xarun ka shaqeysa la talin iyo matalaad sharci. Aamina Cali Nuur oo iyana baratay sharciga ee qaanuunka kana shaqeysa maktabad, iyo Najma Cali Macalin oo dhigata kuliyaddan. Marka hore kusoo dhawaada Radio Ergo. Aan ku bilaabo Imaan, maxay tahay sababaha ay ugu yar yihiin gabdhaha barashada kulliyadda sharciga ee qaanuunka? Waa mahadsantahay walaalkay, waan ku dhawahay barnaamijka, waan kaaga mahadcelinaa casuumaadaada. Waxay ila tahay qaanuunku sida guud waxaa ku yar dhalinyarada oo dhan markii dalkeena loo fiiriyo. Sababtan waxay tahay burburkii iyo dhibaatadii ay Soomaaliya gashay ayaan isleeyahay waxa horseedka u ah in ay ku yaraadaan dhalinyarada. Sababtu waxay tahay waagii hore horumar fiican ka jiray kuliyaddan iyo mihnadanba. Kadib dalkii markuu burburayna waxaa dhacday inaan cadaalad jirinbo ama aysan jirin meel loo cadaalad doonto. Sidaas darteed kama banaaneyn in la barto, waayo shaqo ma lahayn. Qofka hadduu qaanuun barto wuxuu ka shaqeeyaa ma jirin. Sidaas ha keentay in dhalinyaradu ku yar yihiin. Dumarkana waxaa specific uga dhigay oo haddana ku sii yareeyay waxay tahay in loo arko inay tahay shaqadan shaqo rag. Waxaa jirta assumptions oo ay dadka aaminsan yihiin. Waxaa ka mid ah in shaqooyinka qaarkood ay yihiin shaqo rag ay tahay, sida engineerinka, lawga. Maanta haddii engineer lagu dhaho waxaa kugu soo dhacayo in nin engineering sameynayo. Sidoo kale markii law laga hadlana waxaa kugu soo dhacayo nin maxkamad taagan oo kheyl dhaaminayo. Sidaas darteed waxaa waaye bulshada oo iska dhaadhicisay inay shaqadan shaqo rag tahay, iyo sida guud inay dhalinyarada ku yar yihiin kuliyaddan. Sidaas ha isleeyahay ugu yar yihiin. Aamino, ma helaan fursado shaqo oo la mid ah kuwa ragga gabdhaha? Si guud markii looga hadlo fursado shaqo way jirtaa, laakiin mid la mid ah ragga markii la dhaho caqabada meesha inay ka imaanaysa ila tahay. Sida guud shaqooyinka inay gabdhaha ay ka shaqeeyaan arrimaha sharciga iyo wixii la xiriiro wax sahlan ma ahan, maxaa yeelay baraaruga bulshada ma ka jiro dhankaaseti oo in sharcigii la barto ayaaba lagu yaryahay shaqadii maxaa ka filanaysaa. Laakiin insha Allah hadda wixii ka dambeeyay mustaqbalka waxaan rajeynaa kasoo qayb gal badan dumarka dhanka sharciga inuu jiri doono. Najma, maxaad ku dooratay kulliyadda sharciga? aad iyo aad u mahadsantahay. Kulliyadda sharciga qaanuunka horta kulliyad aad u weyn waaye oo aad u qiimo badan. Aniga waxaan ku doortay maadaama ay gabdhihii gaabis badan ay ka geliyeen kulliyaddii oo doorasho badan aysan lahayn, nafsiyan waxaa jeclahay role model ahaan inaan u noqdo gabdhaha oo li arko anoo raggii la shaqeynayo, maxkamadihii la joogo oo la isku kay haleynayo, bulshada isku kay haleynayso si dumarkii kale ay ugu soo dhiiraan. Sidaas ay ugu dhalisaani. Waxaan markaan rabaa inaan siiyo Imaan, maxaa keenaya in gabdhaha aysan helin fursad la mid ah kuwa ragga ee garsoorka? Waxaa keenaya ma jirin gabar lagu daydo oo marka horeete lagu bartay inay handle gareyso kiisas ama advisor noqoto oo dad tala siiso oo xafiis u furan yahay oo loo tago. Marka maadaama indhaha bulshada aysan ku jeedin gabdho badan oo howlahan ka soo baxayo kuna yar yihiinba mihnada, kuwa ku jirana aysan ahayn dad muuqdo, waxaa keenaya inay aan lagu dhiiranin in loo tago oo lawyer ahaan loo qabsado. Maxaa kugu dhaliyay inaad aasaasto xarun ka shaqeysa la talin iyo matalaad sharci? Waxaa igu dhaliyay anigu horta marka hore qof qaanuun bartay aan ahaa, waana practice gareynayo oo ku shaqeynayo. Marka qofka ganacsadaha oo ganacsada yahayna suuqa mar walba gaabki ka jiro wuxuu sameeyaa inuu investigate. Marka aan waxaan aqaano waa mihnadan oo ayadaan bartay ayadaan ku shaqeynayo. Waxaan dareemay suuqa inuu gaab weyn ka jiro maadaama ay jiraan xafiisyo sharci laakiin aanan lahaynin shirkado sharciga ka shaqeeyo, lawyer badan hire gareeyo, area walba oo sharcina cover gareeyo inay clientskooda ka caawiyaan oo ay kala shaqeeyaan. Baahidaas horta marka hore jirtay iyo riyadeyda oo ahayd inaan mar yeesho law firm aniga aan leeyahay oo handle gareeyo, iyo representationka gabdhaha oo aan ka waayay suuqa. In aan waayay gabar marka hore aan ku daydo xafiiskeeda aan ku tababarto markii aan ardayga ahaa. Marka hadda waxaan rabaa inaan wadadaas oo kale gabdhihii u furo oo ay ku dhiiran karaan inay xafiiska yimaadaan, ku soo tababartaan, arkaan gabar ku jirto shaqadii oo ka shaqeynayso, ayagana beri sidii ay u sameyn karaan
oo ay suuqa ugu soo badan karaan inay noqoto qof ay arki karaan inaan noqdo sidaas ay u dhalisay. aaminaan siinayaa aamina sidee muhiim ugu tahay gabdhaha barashada sharciga qanuunka? muhiimad weyn ayay leedahay. marka horeyse kuliyadda si guud markii lagu hadlaayo dumarkana si gaar muhiimad weyn ayay leedahay. maxaa yeelay qayb ka mid ah bulshada ayay matali doonaan. waxaa jirta tan kale dhibaatooyin badan oo dumarka qabsado dhanka tacadiyaadka jinsiga iyo kiisas badan oo dumarka gaar ay u yihiin. soo matalaada waxay ku fiican tahay mar walba inay dumar ay ahaato, iyada ayaa fahmi karto baarista iyo matalaada sharciba. soo dhankaasiyati iyo dhinacyo badan maadaama dumarkii qayb ka mid ah bulshada ay yihiin, qaybka kalena iyaga ay barbaarinayaan, waxaa muhiim ah in maxkamadda ay kasoo muuqdaan doorkaasiyati ay ku jiraan. waxaan siinayaa najma markaad jaamacadda aad dhamayso maxaa kuu qorshaysan? aad iyo aad u mahadsan tahay. horta qorshahayga waxaa waaye yacni wixii 4 sano aan soo baranayay inaan ka miro dhaliyo oo dadka isku kay haleeyaan, oo maadaama xoogaa gaab uu ka jiro dhanka dumarka aysan noqonin looyaro, inaan noqdo looyarada la isku haleyn karo, kiisaskii loo dhiiban karo, si dumarkii kale hadafkeygii ahaa kooda hore inaa yacni dumarkii role model u noqdo oo dumarkii kusoo dhiiradaan sharcigii, inaa anigana waxaa waaye shaqadii aa ka dhabeeyo. markan aan siiyo iimaan, baahi intee leeg ayay bulshadeenu u qabtaa dumar sharci yaqaano in la helo? baahi weyn aa jirto. sababta waxaa waaye maadaama oo fildiga u badan yihiin rag, dumarku waxay qabaan baahiyo badan oo sharci. waxaa laga yaabaa inaysan aqoonin qaarkood xuquuqdooda iyo meelahay u raadsan lahaayeen. waxaa jiro waxyaabo badan oo aysan ku dhiiran karin inay nin kala hadasho. markii lawyer nin u tagto waxyaabo badan aysan u faahfaahi karin aa jiro. waxaa ka mid ah haddii oo kufsi ku dhaco, haddii oo any violation oo ayada xishoodkeeda aysan u bandhigi karin nin, inay muxuu ahaay hesho gabar ayadoo kale oo dhibaatadeeda fahmi karto oo si qodan oo togan uga hadli karto wixii jiro markaas ay rabto. marka baahidaasaa jirto. waxaa kaloo jirto dee maxaa waaye Soomaaliya rag iyo dumarba oo ku nool yihiin. haddii aysan labadoodaba hormarin waxaa waaye wadanka wuxuu noqonayaa wadan hal garab ka nool garabka kalena ka dhinsan. marka haddii aan rabno in bulshadeena kor u soo kacdo, waxaa u baahannahay dumar meel walba representative ka noqda. waxaa u baahannahay dumar siyaasiyiin, waxaa u baahannahay dumar sharci yaqaana, waxaan u baahannahay dumar ganacsiga economiga ku jiro. sidaas darteed gabdhuhu waa inay helaan role models, waa inay helaan gabdho bara sharciga oo jaamacadaha taagan oo professoro noqdo, kaliya ma aha inay looyaro noqdaan. fildigan oo dhan inay representative ka noqdaan, inay bara jaamacadeed noqoto oo professor sharci oo gabar la helo, inay muxuu ahaay advice ka bixiso, inay shirkadihii ka shaqeyso, inay public sectors ka shaqeyn karto oo dowladda naftirkeeda representative noqon karto. marka gabdhaha soo koraya ee niyadooda ku jirta inay looyaro noqdaan, inay ku daydaanna muhiim ay ugu tahay. kuwa victimka ah ee dhibaatada gaartayna gabaray la hadli karaan inay helaan ay muhiim u tahay. sawirka guud ee wadankeena ka baxayana in gabdho iyo rag korsan oo waxbartay oo meel walba taagan inaa helno ayadana muhiim u tahay. haddii ay soo bataan gabdhaha sharciga baranaya, muxuu noqon karaa doorka gabdhaha ee golayaasha garsoorka? haddii ay soo bataan gabdhuhu waxaa bilaabanaysa inay horta sameeyaan inay dhinac walba ka galaan mihnada, inay noqdaan qareeno, inay noqdaan barayaal jaamacadeed iyo inay garsoorkii ku biiraan oo wax ka bedelaan. marka wadankeena hadda inay gabar garsoore ka noqoto shaqo badan ay u baahan tahay. shaqadaas badanna waxaa lagu gaari karaa in gabdho badan la helo oo doodo furmaan oo wixii ayaga ay dimaan gareeyaan. xaqaaga waxaa waaye haddii aadan raadsan meel cidlaa kama heli doontid, cid kala soo doonanayso oo kuula imaanaysan ma jirto. laakiin garsoorka heerarkiisa kala duwan ama guud ahaan cadaaladaba inay ka sameeyaan micno oo ay muuqdaan ayay micno badan u sameynaysaa inay kusoo bataan mihnada. marka gabar walba oo ku riyoonayso ama jecel inay sharci barato, waxaan dhihi lahaa hore u soco oo dadaal oo muxuu ahaayeto meeshii qareenad ama garsoore insha Allah mustaqbalka ama xeer ilaaliye muuqda noqo. bal ka waran sida gabdhaha aad ugu qareentaan markii ay timaado inay tacdiye ay la kulmaan oo kale? horta hiilisa magaceeda ka garan kartaa inay bulshada u hiilisa loo aasaasay. gaar ahaan maadaama ay qofka ugu sareeyo dumar tahay, waa dareemi kartaa doorka ay dumarka ku leeyihiin. haddii ahaan lahayd inay ama ku tababartaan ama ayagoo victims loogu adeego loogu qareemo. marka way badan yihiin dhibaatooyinka dumarka ay la kulmaan. waxaa hadda inta ugu badan oo aragna waa domestic violence, wax badan oo dumarka ku dhaco, tacadiyaadka kaga imaado qoyskooda. bishii koowaad ee aan furnayn waxaan helnay adiga ilaa 5 kiis oo ku saabsan domestic violence.
badankoodna waxaan ugu adeegnay si free ah oo lacag la-aan ah. Sababta keenaysana waxaa waaye horta anaga legal aidka waan bixinaa dadka markay categorigaas soo buuxiyaan oo aan ka dareemno inay bixin karin xushmada qareenkana aada u garab siinaa. dumarkana dee kumaba sii jiraan muxuu ahaato in la caawiyo oo garab la siiyo maadaama aniga aan dumar ahay meeshan aniga aan u sareeyo hadda waan madax u ahay. Marka dumarka waa la caawiyaa ilaa iyo 4taas case oo aan ugu adeegnay si bilaash ah oo domestic violence-ga ah hadda ognahay. waxyaabihii kale hadda kadib noo imaan doona waxaan rajaynaynaa inaan u adeegno oo u qareeno si bilaash ah qofka hadduusan awoodin, hadduu awoodana hadda wuu awoodaabo. aaminaan siinaya aamina dabcan sidee is leedahay gabdhaha way kusoo badan karaan barashada kuliyaddan sharciga qaanuunka? xalka ugu fiican ee hadda aan arki karo waxaa waaye in oo la arko dumar badan oo mihnadii markii ay barteen practice gareynayo ku shaqeynayo hana qadaan lawyer hana qadaan xeer ilaalin ha ku dhiiradaan inay talo sharci ay bixiyaan. markii la arko dumarkaasi waxa soo badanayo ardayda badan ee soo galayso gabdhaha badan kusoo biirayo kuliyadda sharciga qaanuunka. sidoo kale waxaa dhihi lahaa in la badiyo baraaruga bulshada in wacyi badan la sameeyo oo dhanka sharciga quseeyo ahmiyadiisa in laga hadlo doodo badan in la sameeyo saameyn badan ku yeelay inay gabdho badan kusoo biiraan kuliyadda. adigana maxaa is leedahay? aad iyo aad u mahadsan tahay. waxaa waaye yacni inay wacyigelin badan la sameeyo oo dumarkii loo sheego arrimahaas inay sharcigii muhiim ay u yihiin ay ka qayb qaataan yacni bulshada ay ka qayb qaadato in wacyigelin loo sameeyo. waa tahay imaan adigana maxaa soo jeedi lahayd? anigu waxaan isleeyahay horta wacyigelintaas ay gabdhaha ka dhawaajiyaan wax muhiim waaye. kuliyadda qaanuunka guud ahaanba waxaa jiri jiray markii anaga aan galaynay dadka nagu horeeyay caqabadahaas way la kulmeen. waxaa la dhihi jiray markaa sharci baratid Soomaaliya maxaa ka shaqeynay, maxaa kuu geeyay inaa kuliyadda waqti iskaga dhumisid. laakiin hadda markii ay waalidka fahmaan in kuliyadda micnaha ay leedahay in gabadhoodii markay kuliyadda barato nafteedana protect gareyn karto, familkeedana bulshadiina u adeegi karto, markay arkaan way ku dhiirinayaan inay gabadha iska qorto kuliyadda qaanuunka kadibna ay ku shaqeyso. waxaa kaloo aan aad isu leeyahay wacyigelintaas waxay anfacay waalidka mar kale inay xorriyad siiyaan gabdhaha. kuliyaddan waxaa waaye bulshada laga dhex shaqeynaa, waxaa loo shaqeynaa rag iyo dumar intaba. waxay kaaga baahan tahay markaa rabta inaad ajiif garayso wax inaad networking sameyso, dadka ka dhex shaqeyso, marmar bilaash ku shaqeyso, waqti badan ay kaa qaadanay. marka gabadhi haddii loo guriga ii fadhiiso waxba ma ka keeni karto inay shahaadada soo qaadatay meel dhigtay noqonay. marka waxaa sameyn karo in gabdho badan la helo oo kuliyaddan ka shaqeeyo bartana in buraarug bulsho oo jiro, bulshadu inay legal systemka aaminaan marka hore, in sharci jiro inay aaminaan, in lagu dhiiri karo systemka Soomaaliya ka jira inay aaminaan. kadib ayaa waxay imaan kartaa in loo arko kuliyaddan qofkii bartay inuusan shaqo waayeenin iyo inuu bulshada anfici karo. sidaas darteed marka waalidku waxaa u fududaanaysa inay gabdhaha u ogolaadaan, gabdhuhuna naftirkooda waxaa fududaanaysa inay fahmaan micnaha kuliyaddan ay leedahay. sida guud dadka kale oo xataa sharci yaqaanada ahayn waxaan isleeyahay waxaa aad u fiican inay shuruucda akhriyaan oo xuquuqdooda ugu yaraan inay constitutionka akhriyaan, dastuurka ogaadaan, xuquuqdooda gaarka ah inay yaqaanaan ay ogyihiin, kula xisaabtami karaan dadkay u shaqeeyaan, dadkay la shaqeeyaan, kuwa ay la nool yihiin iyo cid kasta oo markaas iswajahayaan xayndaabkooda ku jiro.